بسم الله الرحمن الرحيم. halkan waxaan ka guda galaynaa insha Allah cashirkeennii ku saabsanaa downloadingkii Parrot Linux. awal waxaan hore usoo duubnay, waxaan usoo dejinay, usoo download garaynay Parrot Linux. hadda waxaan download garaynaynaa, awal waxaan soo download garaynay soo download garaynay Kali Linux. hadda waxaan tegaynaa sida Parrot loo soo download gareeya. halkan aan ku baran doonaa. hadda markii la fiiriyo, haddii aan Parrot tiraahdo bal la fiiriyo wax Parrot soo bixi doono. markaan Parrot niraahdo waxaa noo soo baxayo kaamirooyinkan arkaysaan iyo waxaas soo baxayo Parrot haddii la yidhahdo. ilaan Parrot shaqadanada ma ahan, iyo waa inaan Kali Parrot soo dejisana. waxaan u baahannahay Parrot Linux kaasaan rabnaa inaan soo degsano. hadda maxaan qoranay Parrot Linux. haddaanu tagno website-kooda guud waa kana. waxaan leenahay right click, open link, new tab. waxaan dhihi karno, waxaa kaloo dhihi karnaa download. waa kan ka tiraynaa downloadka. ilaan graafkiisa uu leeyahay, graafkiisana waa kaas inta inkaga muuqdo. hadda waxaan tagnay, markaan intaan ku dhufano waxaad arki doontaan inuu leeyahay download tag. haddii aan download niraano maxaa noo soo muuqan doono. ilaa hadda waxaan ku aragnay graafkii, waxaa noo soo muuqda 3 option. optionka koowaad waa dhinaca security, dhinacana waa home workstation-ka aad leedahay. meeshan kale waa other building. annaga marka hadda shakhsiyadaydu hadda ma baahni home workstation iyo others kale ma baahni. waxaan aniga isticmaalaya wadanayga ay tahay waa security. dhinaca security-gan u rabaa. markaad fiiriso graafka uu leeyahay ama muuqaal ahaanta uu leeyahay waa kaasaa security-ga graafkiisa. marka la Parrot waa 4.7 security. aan bal fiirina waxa la soo dejinayay sidii loo soo dejinayo. inta maxay kaa muuqdo qor maxay kaa muuqdo. waxay kaa muuqdaa Parrot security our complete all in one environment. hal environment aan dhammaantood kusoo wada baalka galaynaa kusoo dhamaystirnay. waa pentesting private, waa digital forensics. markaas la fiirin inta waxaa kugu qoran live installer ISO. markii lagu shubaa ISO la rabaa. markaan u tagno inta maxaa nooga muuqda Parrot security KDE edition iyo security edition. Parrot security waa interface mate. formattingkiis waa ISO. qaybuu kala qaybsama marka ISO ma ahan. hadda marka sizekiisa la fiiriyan waa 4GB. marka download hala yihahdo Mirrorless lagu soo dejinayaa, Toronto lagu soo dejinayaa, Kali lagu soo dejinayaa. asaga wuxuu ku duuban yahay ISO ku duuban Power ISO ku duuban yahay. anaga iyo Toronto ku degsanaynaa. markii virtual machine uu ku shaqeynayo, virtual machine yahay, maxay ka dhex muuqdo 5GB waa 5.7 waa 6GB.